شالكان dadka ugu shaqee nabadda ku raadi guriga hala fariisan waxaad yeelaysaa Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Kenya iyo meel walba beesha ay joogtay nabadoon baa ummadda u tag oo raadi maslaxadooda iyo khayrkooda iyo wanaagooda intaasaan leeyahay waa mahadsantii nabadoon cabdiweli axmed shiikhdoon oo dhowaan beeshiisa oo ah yuusuf daa'uud ay ku doorteen islamarkaana ay ku caleema saareen gudaha magaalada caabudwaaq ayaa caawa hoyga dhaqanka waxa ay ugu geeyeen ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarax waxaana munaasabad kooban oo ka dhacday hoyga dhaqanka ka hadlay xubno ka mid ah nabadoonnada iyo isimada beesha yuusuf daa'uud iyadoo ay si wada jir ah u soo dhoweeyeen islamar ahaantana ugaaska iyo xubnaha dhaqanka oo ku weheliyey kulankan ugaaska uu ku qaabilayay nabadoonka ay ugu sheegeen in dhammaantood beesha yuusuf daa'uud dal iyo dibad ay isku raacsan yihiin islamar ahaantana uu yahay rabitaankoodii ay ku soo xusheen nabadoonkan oo ah nin dhalinyara waxaana halkan hadallo kooban ka jeediyey xubno ka mid ah dhaqanka beesha yuusuf daa'uud iyagoo ugaaskana ka codsaday inuu soo dhoweeyo annagu waxaanu nahay deegaanka dad u dhashay oo qabaa'il ah oo reer yuusuf la yidhaahdo waxaan doorannay inan yar oo culimo ah oo ganacsado ah oo caqliga u saaxiib ah oo diinta u saaxiib ah oo dalkiisa iyo dadkiisa u daacad ah waxaan rabnaa beesha sade way caleema saaratay way soo dhoweysay waa karaamaysay waa u ducaysay waa rabtaa raalli bay ka tahay waxaa noo reebanaa qasriga ugaaska ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarax ugaas cabdille waxaan rabnaa sidii beesha sade ay u caleema saartay isagoo ah koofiyaddii beesha sade ama beesha muslimka ama ummadda diinta u saaxiibka ah ama dalka koofiyaddiisii isagoo ah waxaan rabnaa sidaanu annaku u culaysinay oo culayska u saarnay haddaan nahay beesha reer yuusuf ama beesha sade ama mareexaan qaas ahaan ama degmada caabudwaaq mudanayaal iyo marwooyinba ugaasku inuu ka qayb qaato oo qaybtiisii iyo kaalintiisii ka soo galo oo koofiyaddii mareexaan asaga ahe weyneeyo sidaa annagu aan doonayno oo haddii aanu nahay kuwii dalka u dhashay ee dadka aanu doonayno sidaa caynkaasa weeye ugaas adigaan meesha waxuu ahaayey kugu socotaa xafladdan waana wax kale ma ahee waa aqoonsiga nabadoonka beesha reer yuusuf oo adnaga aqbashay waa kaaga mahadcelinaynaa waana soo dhoweynaynaa arrintaas qoyskan taariikh badan oo xagga ugaasyada weliba buu ku leeyahay beesha sade annaga hadda waa dib aan usu soo jabnay ilaaha noo nooleeyey waa soo noolaanaynaa beeshada dhexdeeda inaan ku dhex maartay aan wax ka muuqanaa rabnaa ninkaas aan doorannay xamar baa uga imid aniga xamar caleemasaarkiis xamar baa uga imid waa isku raacsannahay Ethiopia gado iyo wixii gudaha ku jiro ninkaasaa noo ah nabadoon waxaan rajaynayaa inuusan noqonin nin hadduu maqan yahay aan la tibin hadduu joogana aan la tirin ha ka dhigin karaama kaaga saaidaysa midnima kaaga saaidaysa tawfiiqa marixan yeelanayaa talada marixan waxa ka maqnaa reer yuusuf ka maqnaa waxa weeye waxaan rajaynayaa inaad tixgelin gaar ah siiso waa idin salaamahayaa waa maasantihiin wabillahi tawfiiq nabadoonka cusub oo beesha reer yuusuf nabadoon cabdiweli axmed shiikhdoon odayaasha kale ee reer yuusuf hablaha kale oo reer yuusuf marti sharafka faraha badan
ee ka soo qayb gashay ee beelaha sade bahda saxaafadda dhalinyarada mutacalimiinta culimaa udiinka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacd alsalaam waxaan si diiran u soo dhoweynaynaa nabadoonka cusub nabadoon cabdiweli axmed shiikhdoon oo loo doortay nabadoon cusub waa nabadoon mareexaan khaas ahaanna waa nabadoon beesha reer yuusuf waan soo dhoweynaynaa waxaan ku soo dhoweynaynaa gacmo furan waxaan ku soo dhoweynaynaa walaaltinimo waxaan ku soo dhoweynaynaa inuu nin waxgala yahay markiisii hore uu dhallinyarada ahaa oo ganacsiga ahaa wuxuu ahaa nin firfircoon nin culimo ah nin aqoon leh haddana waxaan u aragnaa wax qiimaha uu leeyahay in beeshiisii ay ka dhex keentay mareexaan oo madaxii u sarreeyey uu dhex fadhiyo ugaaskeenii u dhex fadhiyo waxaan ku soo dhoweynaynaa si sharaf badan si kalsooni leh waxaan leenahay xilka lagu saaray allaha kula galab garo allaha kuu fududeeyo waxaan ilaahaya ka baraynaa ilaahay uu kuu fududeeyo ilaahay inuu adduun iyo uusan kugu ceebayn annagoo dhan allah xilka noo fududeeyo beesha waxaan leenahay reer yuusuf aad iyo aad baad u mahadsan tihiin nabadoon cabdiweli axmed shiikhdoon oo isna halkan hadal kooban ka jeediyey ayaa ka mahadceshay sida sharafta leh uu ugaasku ugu soo dhoweeyey qasriga hoyga dhaqanka ee ugaas maxamed waxaan salaamayaa awalan ugaaska beesha sade ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarax waxaan kaloo salaamayaa salaadiintan ka soo qayb gashay shirkan golaha guurtida nabadoonnada marwooyinka dhalinyarada bahda saxaafadda dhammaan ka soo qaybgalayaasha waa salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala awalan bacdeen waxaan u mahad celinayaa ugaaska beesha sade waxaan u mahad celinayaa nabadoonnada golaha guurtida dhammaan salaadiinta dhammaan ka soo qaybgalayaasha ayaan u mahad celinayaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xafladdan dadkii ka soo shaqeeyey iyo ka soo qaybgalayaashaba aad baan ugu mahad celinayaa waxaan alle subxaana wa tacaala ugu rajaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala khayr fara badan inuu siiyo miisaankooda xasanaadkan alla uu ku kabo intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo halkan ugaaska beesha sade ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarax soo dhowow ugaas waxaan u mahad celinayaa dhammaan marti sharafta iyo dadka rag iyo dumarba leh oo igu soo booqday guriga dhaqanka sidoo kale waxaan si gaar ugu mahad celinayaa nabadoonka isagana ka ajiibay beeshiisa inuu nabadoon u noqdo waxaan kaloo u mahad celinayaa beelweynta reer yuusuf sida wanaagga leh oo sharafka leh ay u doorteen nin dhalinyaro ah culamo ah aqoon-yahan ah dadka iyo deegaankiisana yaqaano taasna aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa waxaan rajaynayaa sida karaamadiina aad u ilaaliseen in ilaahay subxaanahu wa tacaala karaamadiina u ilaaliyo taasaan ilaahay ka rajaynaynaa nabadoon cabdiweli axmed shiikhdoon annugu waa isnaqaanaa nin markiisii hore dhalinyaro ahaa aqoon-yahan ahaa culimo ahaa afgaaban oo markii uu ii yimaado inuu maslaxa iyo talo wada maahane aan weligii ku arkin asagoo u doodaya qabiil weli uma arkin jifaasoo u doodaya ma arkin horta middaas waxaa weeye sharaf iyo karaami agtiina u noqonaysaa isagana sharaf iyo karaami u tahay arrintan aniga aad ii farxad gelisay markaan arkay in isdhaqankii ay ku soo biirayaan dad dhalinyaro ah especially beesha sade ka mid ah waad ogtihiin soomaalida waayahan dambe
isimada ama dhaqanka waxay u doortaan dad dhalinyaro aqoon-yahano ah waxgarada oo maskaxdooda fresh ay tahay oo aan dagaal horena ka soo qaybgelin mid dambana aan ka qaybgelin oo raba inuu nabad iyo maslaxa ku soo dabaaliyo dadkiisa iyo bulshadiisa waxaan leeyahay oo fariin u dirayaa beelaha sade ama ummadda Soomaaliyeed dhammaantood cidda aad dooranaysaan fiiriya masiirkiina ka dhex fiiriya wanaagiina ka dhex fiiriya karaamadiina ka dhex fiiriya laakiin ha ku soo dooranina ninkan waa baagamuude shaqo ma haye ha loo geeyo ugaaska iyo odayaasha hala dhex fariisiyo yaa lagu soo dooran taasaan rajaynaya haddii ilaahay tan kale dadka intay odayaasha doortaan ama dhaqanka doortaan maalintay soo dhex fariisiyaan bay ka tagaan hadda si qurux badan reer Yuusuf halkan ma u fadhiyaan waxaan rajaynayaa inaad mar walba saan ugu fadhinaysaan sida qabaa'ilada kale ama ummadda kale maalinta ay doortaan baa ugu dambaysa nabadoonkooda ama ugaaskooda ama odaygooda waxaasna wax loo baahan yahay ma aha qofka haddaan la garab istaagin oo lagu garab istaagin wuxuu qaadayaa geel buu qaadayaa dad buu dhex gelayaa ma aha inuu nabadoon u yahay reer Yuusuf keliya ummadda islaamka oo dhan nabadoon buu yahay wax allaale wixii meesha uu ka soo qaado inaad ku garab istaagtaan oo tiraahdaan nabadoone waa kugu garab taagannahay haddii karaamadiina ku jirta karaamadiisana ku jirtaa hogaamintiisa wanaagsanna waa ku jirtaa laakiin maalinta intaad doorataan aad ka tagtaan haddii asagana maalintaas ha ugu dambayso ogaada tan kale waxaan aad iyo aad u codsanayaa ha fiirinina waxa yarkaa uu haysto ha ku daynina oo waa maxay hadduu ilmihiisa biilkooda uu soo dhacsado ha dhihina asagaa wax haystee ha naga dabaro wax walbaba yaa la oran wax ma dabari karo runtaa idiin sheegaya ma awoodi karo qofka wuxuu leeyahay nolol buu leeyahay maalinta sidana guri dhaqanka albaab laga galuu leeyahay albaab laga baxa ma laha mar haddaad dhaqan isim noqotid waa noloshaadii oo dhan way gabagabowday ilaa aad ka dhimanaysid khabri aad ka gelaysid dadkaad hoggaan u ahaanaysaa siyaasadda albaab laga galay leeda albaab laga baxana waa leeda gadaal baad ka sii baxaysaa 4 sanaad joogaysaa waxaad joogaysaa waa 4 sano laakiin qofka isinka ah lifekiisa wuxuu joogayaa shaqadaas u haynaya marka haddii lagu dayaco ka warrama haddii la yidhaahdo xoolihiisa iyo hantidiisa ha ku shaqeeya ka warrama ma awoodi karo waxaan codsanayaa reer Yuusuf nabadoonkii maanta waa idin dhex jooga ugaaskiina waa idin dhex jooga odayaashina waa idin dhex jooga cawda oo 100 halaad iyo 200 halaad ugu yabooho ku bixiya ha ku yaboohina afka keliya ha ka sheegine siiya berri buu idinka bixin berri mid ka culays badan oo ka dhib badan idinkoo abaar iyo culays la joogu bixin anigu waxaan qabaa caawa haddaad isku timaadeen intiinaan 100 qof waa dhintiin min hal haddii laisu qoro waa 100 halaad waxaad yeeshaan ku bixiya ha kala xishoonina nabadoonka aniga waxaan u malaynayaa hadda dhaqanka waxaan ku jiraa sanadkii 4aad baa ii socdo culayskii dhibkay leedaan ogahay markaad ummad hoggaan u noqotid dhib kasta oo dhaco bari iyo koonfur iyo waqooyi waa ku dhibaysaa ma seexanaysid hurdo waad kala seegaysaa markii marti kuu timaado ama dadkaagii oo ishaysta oo isku haysta 20 halaad ama 30 halaad ama 10 halaad oo nabadoodii iyo maslaxadoodii ay ku xiran tahay haddaadan oran karin war anaa 10 halaad ama 20 qaaday qayb weyn bay ku tahay dhaqanka waxaan leeyahay khiyaaray farxadda iyo wanaagga maanta caawa idinka muuqdo keliya yeesu ku hakanin caawa keliya waxaan codsanayaa nabadoonka in la garab istaago haddaad rabtaan reersada oo dhan inuu wax u qabto haddaad rabtaan reer Yuusuf inuu wax u qabto haddaad rabtaan karaamadiisa iyo sharafkiisa inuu orkaa aado garab istaaga oo noloshiisa iyo biilkiisa kafaalo qaada oo xoolihiisa kafaalo qaada intaa waxaan leeyahay beesha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa idinkaga baryayaa ajar iyo xasanaad aan la koobi karin allah idinka siiyo si aad u soo doorateen asagana waa u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa
ilaahay inuu ku caybasto ma dhib yara waa dhib badan hawshan waa dhib badanta ma dhib yare ilaahay ha ku caybasto